koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan qof cunay kalluunka xilwa ama cabay caanaha xilway xaajadiisu toostaa caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilag hadda carruurta si oo xafaayada Confi baby waa kifaaxoode kale u xir war kalamaanay ayaantan qaylo badan baan maqlayaa dad badanna waa arkayaa oo dawladda ka soo horjeeda 4 sano ka hor markii madaxweynaha la doortana dadku waxay taageero u bannaan baxeen waa tii la ogaa marka dadka qaylinaya waxaan rabaa inaan u sheego isagoo ah daciif addoonkii dulmi geysta ilaah wuu uga daraayo dembiga la dhibkaase mas'uulka daadihinaya dawladdeena shaqaysa daraarta darajaysay xilkiyo duubka la saaray u dabaaldegidiisa ducadii iyo amaanta waadinkii u dareeray dadka qaylinayo bal maxaa idin daarood hadda diidantiin yaa aroodasay wax u jiraan ka maanta xoogaga wadaniinta ma isku biiri mase gacan midigaa soo gaartay war ma taqaanida bidixdaaba laaluushka lagu bixiya war naga tag ma diijaabku ka hormarta lacagta bixisay war way dheega jiray hooro qayliyaas waa way qanuuniye laf dagara gamaad war wixii dhacba ka qabsamiya oo afka ka dhawr waxba dhacay war waliba dheega jiray wixii dhacayaba dhankiisa hayaha wadaniga dhabta allow door wareedha warka iga dhaxgelinine ugu dambays waxaan idin kula dardaarmaya ha abaaldarin ee u duceeya mas'uulka xilka daadihinaya mar kale tana doorta daacad baa la rabaaye aryaanaha anigu ibiradu dadka way uga dartaa wale way uga dartaa waynaan dareemine dadka kii dhergow daran dilaaliyo milaaliyo dibu socodna waysaga aan maqli jira aroo cabdul maxaa ugu dari waysay hadalkii maadaalaha doco qaba dugsiya doodii goolaha sare maqaardii dambaa jira gooy wadin waliba ku tabtay durdura geel baa ku damaa'ina waa hun yahaye dadkuna waa lama huraan dalkuna waa lama huraan waranna waxaan maqli jiray dhirku wuu daruuraynayaa gooru di'iyaa og waa lay dardaar warinayaa darajada iyaa og war heesta haddeerta waxaa ka tagteen nin isdilay dan ha u gelinay sidirigam kan istagayna yeelkii ey sidirigam dabadhilif warkii daayey sidirigam aryaadhaha aniguna waxaan dhegansan jiray dawo ma laha ruuxoo wadkiisoo dul joogsada aniguna diyaar baanu ah wixii addoontaahe haddulmeera caashaqu ninkow daynku leeyahaye haddulmeera caashaqu ninkow daynku leeyahaye war ibdilaan wayba dheega jaray waxbay dabiibina wadkaan isaragne yaa dheega jaray warnamiya reer kalmaanoo boqor xilligii abbaasiga dadkan talii jiray dadku usantaliyay ka owaadeen may areen haantida noo dhee beero noo dhee guriyawa noo dhee wareen markii damba taladeena see walku weelaneen boqorku sunu weelooy walaalisa ku wardheeyay walaalis inseeno ereen ha ku sameeyno walaalisa inseeden may areen lankun boqorkii adii walaalka ee walaalay noo gobay ereen iyo oo sheekadiiska hayaan boqorkii oo ferisa fuul meelaha roogsidii markaas ma areen usii bakan ninka la hadal markaas walaalis ma ertay lima weerti usiina hanjeeslay ma eray kama uskuba weerti madun dadweyni awashada gobay ma ereen warasin faahna ma lanka siinka la hadalay weerti ma eri ertay lima dadku maysan weeliyaan lijeeda usun ma eri ertay kama ma inka jibaabe kasaasana walaaga wilisho iska fala jiraan yaanina ka falay wal dheeri aman la kooyneeri waana sax wala iska fala jirtaan usun isinka fala yeerti wala saawiday yaa oo hadda anagu wuxuu isku fali jirnay maana lagu faloyaa war waxaad fal lahayd fashe waa in faatiku ma tirahdaan minankiin aniga imide koowde qof musaafur ahaan ahay labadhe yeeri war hawraar laga horraysa waxay ahayd habkii uu astaahilaha aadanaha lagu hoggaansha
kamaa illimaadilay maahahe war waxaan maqli jiray hunnu hadal maaha himbiriirsina wax arag maaha mar kalamaanay idheegasaana lan qoruwadada geesiistaawiye waa dadka aamawan hindhoo hafu foofiye hoon namarkale kala hormaroon roor may deyro koro lan adakin dhirfin may salaamad dooga kiilibare waraabo suuradna leh aadisku dorunta daanjarrankii wankafadaw fool iwala tuse war ma haysaana guddoomiye aqalka sare cabdi xaashi waraaqiis daba joog ahaa ee waayadan ka soo baxayey mid ka mid ah xalay soo baxday wuxuuna ku sheegay in dawladdu dhagaha ka furaysanaysa baaqyadii loo soo jeediyey waxaana weli shaqadii iska watuu yidhi guddi aan sharci ahayn lamana aqbali karo dalka mustaqbalkiisa in dhagaha laga furaysto cid gaarina ay sidaa ay doonto wax u wadato war arrintu waxay iila eg tahay dhawaaqiisa mucaarad miyaanay ka dhignayn dhallaankii dhulka jooga dhurwaaggow iska qaado war cabdi xaashi waa guddoomiye aqalka sare ee mucaaradka kama mid aha war ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahdi wuxuu sheegay cabdi xaashi inuu yahay hogaamiyaha mucaaradka war maayatullaahi cali khaamanii buu la ekaalday isagaa la dhihi jiray hogaamiyaha ruuxigaaye war lafageri iyagaa la isku jabshaa miya xaalku maraya war madaxweynaha jubbaland axmed madoobe wuxuu yidhi dawladdu waxay keentay sidii shabaabkii in cid kastoo ka fikir duwan ay aayado qur'aan usu deliishato dilna ay ku xakunto marka wuxuu yidhi garan maynee waxba ay isku milan war asaguba tulubka biigka ka saar wuu diidey arooda guddoomiye sheekh cumar finish fadwadii uu soo saaray ma laga kululaaday war mucaaradka iyo dawladdu waxay isku haystaan wax ka duwanaa axmed madoobe iyo dawladdu isku haystaan waana gobolka gedo marka anugu ra'yigayga waxaan dhihi lahaa axmed waa nin garaad le gaashaanqaadna ahaaye duqa waa gurigii iyo gedamaysaga daayo oo goob weyn iska joogo war qaran baynu dhisaynay in qabyaalad la keeno qalad sow noqon mayso war anigu madaxweyne farmaajo waxaan dhihi lahaa soomaali oo dhan baad xukuntaaye gedamaad iska dhaaf war madaxweynuhu gedo kiiniyuu ka difaacaya war ma haysiina wasiirka warfaafinta dube war culusuu soo saaray aroo wasiir dubbe maxaa sidhi war malaha buluskiisu inuu soo qaatee noo wad sheekada war wasiir dube waa nin xariifa dhaqankii nabad iyo nololla haruug ka fahmay waysingare wasiir dubbe may wasiir maareey iska bareejay war dad waan laatiin warkaa naga dhex gelinine wasiir dubbe wuxuu yidhi dawladda kenya waa meesha soomaaliya loogu soo duulo musharaxiin badana diyaaray soo saarta uu yidhi waxaasna oo lala doorasho maahan uu yidhi waa qalqalin amni inuu dulqaado mayna uu yidhi maanta wixii ka dambeeyana kenya iyo musharaxiinta ollaha ka wada waan u digaynaa nairobi ninkii tagana inuu qaladumis yahay waa iska caddahay arooda wasiir dubbe waxaa kaloos yidhi ciidamada kenya ayagoon dawladda soomaaliya iyo amisom waxba u sheegin ay markay rabaanna soo galaan markay rabaanna iska baxaan marka wasiir dubbe warkiisa gar waaye argooyoobow yaa gartaas adigana kuu dhiibta oo qaadku yidhi war wasiir dube waa nin dadaalay oo dawladdiisa difaacay laakiin wuxuusan ogayn madaxweyne farmaajo markuu kaambeenka ku jiro xilligan oo kale inuu saldhiggiisu nairobi ahaa war xilligii madaxweynuhu nairobi ololaha ka samaynayey 4 sanaa ka soo wareegatay miyaan kenya kadib ridoobi karin war horta waxaan idin weyddiiyey kenyana ma dadka ballanta lagaga baxay ka mid ahay baraadar abiy ahmed markiinu helni kenya warjafuya isku erni warwalla weyney goormaa etoobiya sokeeye noqotay kenyana cadow aryaadhaha kenya iyo etoobiya midkoodna ununka noo danay mayso taariikhda haddii dib loo fiirshano dan soomaaliyeed kama shaqayn midkoorna waxaanaan ununku isu geysanana looma geysan hadda waxa leysku haayana waa cadkaanoo ku cuna amba ku ciideeya ee abwaan xuseen cali suubiyo arrintaa ku wareeray wuxuu yidhi how hilib daafa horteerayaal humburuq waa ka hooyaadeed hilib daafa horteerayaal humburuq waa ka habarteer warwar ma haysiine xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed mar kale waxay qabteen barnaamijkii loogu magac daray baadigoobka hogaamiye suuban qaybtiisii labaadna waxaa marti ku ahay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ambasador diinaari iyo dadweyne badan oo ka qayb gelay ayaana su'aalo
weydiinayey mar la weydiiyey farmaajo la garayay fahad maxaad ku eedaynaysaan wuxuu ku jawaabay hadda ka hor ra'iisul wasaaraha ingiriiska nin la taliye ah oo ka awood badanaa jiray aakhirkiina inuu xilka uga dago ninkii awoodiisay sababtay marka waxaan ognahay uu yidhi fahad in kastoon la dooran haddana inuu ka awood badan yahay madaxweynaha marka waxaan kula talinaynaa uu yidhi ama taliyaha nabad sugidda ha ku ekaado ama kambaynar ha noqdo oo meesha ha banneeyo wuxuuna sii raaciyey farmaajo iyo fahad midna lama arko mana hadlo midna waa la arkaa mana hadlo war cabdiraxmaan cabdishakuur ma wuxuu leeyahay jeelkii abi axmed sheegayay oo kale ayuu ku jiraa madaxweynuhu war madaxweyne farmaajo iyo musharax cabdiraxmaan waa dood layskaga hor keeno war haddii madaxweyne farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur dood layskaga hor keeno talow yaa garsoor u noqon lahaa aroo banooni haddii la dheelaayo arbiter lama waayo war kulankaasi hadduu dhici lahaa anuu fahadaan dhihi lahaa doodda u qaybi isagaa weriye horaah war anigu waxaan dhihi lahay doodda madaxweyne farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur inuu dhexdhexaadiyo yuusuf garaad oo weriye hore ahaa war ma haysaane baarlamaankii buntland aroo guddi may iska soo xuleen warba tukarraq bay dood ka keeneen madaxweyne dani lacagta soomaaliya inoo lagaadatidiidii is asilo hereena war ma somalilan bay aqoonsadeen war dhoobo daarada wuxuu isneeyaha nala soo celi miyay dhaheen war ninba meesha bugtaa isagay belbeshaae warka naga dhegaysta baarlamaanka buntland waa weydena waa ti ciidan la dulgeeyey xubno ka midina waxay dhaheen mooshinaan diyaarinaynaayo guddoomiyahan xilka ka qaadaynaa war baarlamaanka buntland xilka qaadis bay uga dhegtay war baarlamaanka buntland nin sugaanyahana madax ka emaadaystaan war hadday xilka ka qaadaan waxaan ka baqayaa abwaan xirsidhuux inuu cambaareeyo war abwaan xirsidhuux iyo xertiisa danjira awliyo wuxuu yidhi afrikaan ku soo wareejinaya abbunaana lijareehe aryaadhaha danjira awliya waxa uu yidhi kalamaan iyo golaha abwaanada inyajaabka ku ridho aan tomankan waddane aan safiirka ka ahay ku soo wareejiha mugga waxaan la yaabanahay awliya jeebku qaad weyna ma buuxsama miya wareedhahayo doorashadii waddanku xaggay maraysaa war kale ha nugu daalinine allah u naxariista ismaaciil midhe wuxuu yidhi guuguulihii ow haddaad guga u ooyayso adigaaba lagu gaadayaa waanad garanayne gaabso oo aamoyaan gaar lagaa qabane war ma haysiini madaxweynihii maraykanka donald trump maxkamadii uu ka dacwoonayey way soo deeriyeen waxayna dhaheen doodaada suuq ma leh doorashadana waa lagaaga guulaystay war diyaaradii madaxda hirshabelle jawhar ka qaaday oo hawada labadii matoor mid uga cilladoobay wuxuu yidhi wasiirka amnigoo saaraa markii nala ku wargeliyey in matooradii mid fadhiistay hawada sarena aan joogno annaan waxba ka qaban karin ilaahayaan taladeenna u dhiibna waana isqiblayn aryaadhaha markay dayuurad hallawdo dadka saaran dusheeda naxdi weys la dirsaane miyaa ka dhacday war maya waa diyaaradii ka xumaaday samaday rafataa arooda war mahaysiinee karoona talaalaa loo helaa la yidhi mar dhowna waa la bilaabahaa la yidhi afrika sow ku soo gaarasa waa adag tahaa la yidhi war gabar u dhalatay dalka Poland waxay tiri talaalka COVID-19 loo helay waa in marka koowaad lagu tijaabiyaa siyaasiyiinta haddii ay ka badbaadaan talaalkaasi waa u badqabaa haddii aanay ka badbaadinna dalkaa badqabaya war anigu waxaan leeyahay siyaasiyiinteenna ha loogu horraysiiyo war anigu waxaan leeyahay siyaasiyiinta mucaaradka ha lagu tijaabiyo ayagaan waxba hayne waranna waxaan qabaa kuwa wakhtigu ka dhammaan rabo in lagu tijaabiyo iyagaa tegaye war waxa siyaasiyiintu qabaan baan qabaaye masaakiinta ha lagu tijaabiyo warnimadii horaa waxaa loo yidhi siyaasiyiintu waxay ka fekeraan doorashooyinka soo socda waddaniyiintuse waxay ka fekeraan jiilalka soo socda war adeer siyaasiyiinta somalilan laguma tijaaban karo waryaanba kuweennaa lagu tijaabinaya marka war lankili fadaali talaalka tijaabo ma baahna arooda waxaa maqli jira gol ayaa lagu tijaabiyaa talaal xuna liidinma keene aniga waxba laygu tijaabin maayo